booqday ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo runtii hawsha u socda ay tahay dadaal nabadeed oo uu colaadda iyo dagaalka magaalada Gaalkacyo ku saabsan inuu maamulada Galmudug iyo Puntland uu kala hadlo waa soo dhaweynaa ra'iisul wasaaraha aad u mahadsan yahay kullay anaga dhankeena waxaan diyaar u nahay colaadda ayada in nabad iyo wanaag iyo derisnimo in lagu xalliyo in wada hadaladii iyo heshiiskii November-tii hore la saxeexay halkii laga sii ambaqaado aad baan uga xunnahay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay aad baan uga xunnahay dagaaladaas ayaga ah aad baan uga xunnahay intii barakacday intii dhibku uu ka soo gaaray waxaan rajaynayaa in dadaalka ra'iisul wasaaraha uu wado inuu miro dhalo dagaaladaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ay joogsadaan min ra'iisul wasaaraha soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله runtii farxad ay tahay waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Galmudug madaxweynaha ku-xigeenka iyo dowladda xukuumadda Galmudug sida jirada loo soo dhaweeyeen waan garan karnaa waqti waxa lagu jiraa doorashooyina haddana sababaha runtii na soo dedejiyay halka ilaa umaana waxa kamid ah colaadaha hadda ka bilowday magaalada Gaalkacyo waxareeda inaan soo afjarno iyo colaadaha guud ahaan ee ka jira dhulka kan iyo meelaha kaleeto waxaan ku baaqaynaa runtii nabad in la soo afjaro colaadihii iyo wixii socday maalmahan in laga fogaado wixii adigu af iyo adin keeni kara dhib waxaan rajaynaynaa sidii uu hadda sheegay madaxweynaha Galmudug in heshiiskii aan saxiixnay 2015 November haddii la yiraahdo in la sii dhameystiro meeshii laga sii wado guddiyo iyo dadka la isku keeno haddii insha Allah waxaan rajaynaynaa in arrintan ay si dhaqso ah u soo afjaranto ummadda runtii deegaankaana ee dadka eerka Soomaaliya oo sidalay wada dhashay waxa ayagana ugu baaqaynaa runtii inay si nabad ah oo si dhaqso ah uga fogaadaan waxa la wixii keeni kara colaad iyo dhib labada dhinacna labada state Puntland iyo Galmudugna waxaan rabnaa inay miis wada fadhiistaan insha Allah soo afjaro arrintan sidii mar dambe aysan waxaan soo noqon lahayn falkeeda aan meeshaas ka sii ambaqaano markoo mahadsantiin wada hadal ayaan galeynaa insha Allah waxaan rajaynayaa bidnaahi tacaala markii waxaan ilmaadaan inaan si fiican iyadoo tafartiran aan dhisino xaaladda madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ku baaqay in si buuxda loo fuliyo heshiiskii sanadkii hore ay wada gaareen maamulada Puntland iyo Galmudug ee lagu joojiyo colaadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ra'iisul wasaare Sharmaake ayaa isagu maanta gaaray magaalada Cadaado oo caasimadda maamulka Galmudug waxaana halkaasi uu kala kulmay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug kulankoodaasi kadib ayaa madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed waxa uu la hadlay wariyaasha booqday ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo runtii hawsha u socda ay tahay dadaal nabadeed oo uu colaadda iyo dagaalka magaalada Gaalkacyo ku saabsan inuu maamulada Galmudug iyo Puntland uu kala hadlo waa soo dhaweynaa ra'iisul wasaaraha aad u mahadsan yahay kullay anaga dhankeena waxaan diyaar u nahay colaadda ayada in nabad iyo wanaag iyo derisnimo in lagu xalliyo in wada hadaladii iyo heshiiskii November-tii hore la saxeexay halkii laga sii ambaqaado aad baan uga xunnahay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay aad baan uga xunnahay dagaaladaas ayaga ah aad baan uga xunnahay intii barakacday intii dhibku uu ka soo gaaray waxaan rajaynayaa in dadaalka ra'iisul wasaaraha uu wado inuu miro dhalo dagaaladaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ay joogsadaan intaa kadib waxaa hadalka qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake oo isaguna sheegay in imaatinkiisa magaalada Cadaado ay la xiriirto daminta colaadda ka aloosan magaalada Gaalkacyo waan garan karnaa waqti waxa lagu jiraa doorashooyina haddana sababaha runtii na soo dedejiyay halka ilaa umaana waxa kamid ah colaadaha hadda ka bilowday magaalada Gaalkacyo waxareeda inaan soo afjarno iyo colaadaha guud ahaan ee ka jira dhulka kan iyo meelaha kaleeto waxaan ku baaqaynaa runtii nabad in la soo afjaro colaadihii iyo wixii socday maalmahan in laga fogaado wixii adigu af iyo adin keeni kara dhib waxaan rajaynaynaa sidii uu hadda sheegay madaxweynaha Galmudug in heshiiskii aan saxiixnay 2015 November haddii la yiraahdo in la sii dhameystiro meeshii laga sii wado guddiyo iyo dadka la isku keeno haddii insha Allah waxaan rajaynaynaa in arrintan ay si dhaqso ah u soo afjaranto ummadda runtii deegaankaana ee dadka eerka Soomaaliya oo sidalay wada dhashay waxa ayagana ugu baaqaynaa runtii inay si nabad ah oo si dhaqso ah uga fogaadaan waxa la wixii keeni kara
colaad iyo dhib labada dhinacna labada state Puntland iyo Galmudugna waxaan rabnaa inay miis wada fadhiistaan insha Allah soo afjaro arrintan sidii mar dambe aysan waxaan soo noqon lahayn falkeeda aan meeshaas ka sii ambaqaadno وحصل مصيبة أيام الشيالي يا مالك شراي عيا شوف معك مقعد انتول الصوم اسم غلو قراني مداكم انتلا مقعد انتول الصوم اسم غلو قراني مداكم انتلا مقعد انتول الصوم اسم غلو قراني مداكم انتلا